بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ولالله عنوان كي دورتين وشاب نشأ في عبادة الله، وقطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامية تضبقف ومالنت قيامها بدبادية ربط قيامها كبدبادية. مالنت قيامه ومالن دير سيدا نصوص القرآن كي تلمام يسو 50,000 سنة يا ميلة تاقنانية كنت نكون أصلا ضدك الله حسابنا أيو ومالن دبضا ومالن دتك هوري iyo dadkii damaba khalqiga aadam ilaa iyo ka u dambeeya la isu wada keenayo si liyajzi alladina asaa'u bima amilu wayajzi alladina ahsanu bilhusna, si looga abaal mariyo kuwii xumaha sameeyayna waxay galbadeen, kuwii wanaagga sameeyayna loogu abaal mariyo wanaag. waa maalin ilaahay ina faray inaynu u diyaar garowno: yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وما لن إلهي كنت الماميو جلجلا كيدو إنو أدقيهي. إذن مالن تاس ومالن داليردو قبودو. إلهي بقرآن كوحكولي: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. حيدي يلي با إلهي لي هذا كعب سويدان، يعني هذا كقالودان مالن عرورته أي عفرالا نقطه هول كي يدبت تاغن. ومالون النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي حديثك صحيح مسلم كويا الله إن عد عيدا لسود وين دونه إلى أي قدر ميل ودو أي من دونته دبتنا عديدا لسود وين دونه كمقدار ميل. وحاو النبي كنت المامي يددكو انت يديدان أي يديد كود دولك قلي دونه. dadka qaar baa dhididkoodu canqawyada u joogsanaya, daad kugu noqonaya, qaar buu lawiyada soo gaadhaya, qaar buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu garabkiisa gaadhi doono, qaar baa lagu tilmaamay inuu guntigiisa gaadhi doono. idan qaarna wuu hafin doonaa baa la yidhi. waa maalinta kulaylku uu keensanaya waxaa soo dhidida, waxaana dididaysaa calaa qadri dambik, sidaad u dambaabtay hadba intay leeg tahay. xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale saxiixayn ku yaalla wuxuu tilmaamayaa dhididkaagu inuu 70 diraac dhudhun inuu dhulka hooska u geli doono, qaarkoodna dadka inuu ilaa dhagaha gaadhi doono. idan maalinta sidaa u hawlka iyo dhibaatada iyo mashaakilka badan leh, dadku wuxuu raadin doonaa min malja, meel lagu gabado. wuxuu bini aadamku raadacayn doonaa war wax la hadhsadaa ma jiraan.
hadhna maalintaa waxaa jira la leeyahay carsh araxmaan faqad dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalintaa dadku kadeedku ku sugan yahay dadka maantaa hadhsan doona waxaa ka mida buu nebigu yidhi 7 dadka maantaa dhibta intaa le ka bixi doona iyagu hoos qabow fadhiyi doona ee cadceeddaa soo dhowaatay ee dadku dhididku halkaa marayo iyaga ilaahay ka badbaadinayo 7 qof baa ka mida buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 7dan waxaa ka mid ah imaam cadaalad sameeyey imaamku waa maamul ummad ninkii maamulayay ee ummaddaasi cadaalad kula dhaqmay ummad ciidu cadaalad samaysay waa camal aad u weyn waxaa kaloo ka mid oo ninkaa la daba dhigo oo nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray amase ku kobcay ama ku koray ilaahay cibaadadiisa waxaa kaloo nebigu raaciyey dad asxaabu mawaaqif ah nin qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay oo markuu jamaca hore soo tukadaba wuxuu ka warwarayaa jamacii dambe goormuu bilaabmaya wuxuu kaloo nebigu tilmaamay 2 ilaahay dartiisu jecel oo diin iyo mabaadi'i walaalaysay isuna keentay kuna kala taga waxa uu nebigu kaloo tilmaamay qof mowqif leh oo gabadh wixii loogu xilan jiray oo dhan lihi magac iyo maamuus iyo quruxba lihi intay u yeedhay diiday oo yidhi ilaahay baan ka cabsanaya wuxuu kaloo nebigu tilmaamay qof keligii ilaahay intuu isu taagay ilmeeyey cabsi daraaddeed waxaa kaloo nebigu tilmaamay mid waxay midigtiisu bixiso bidixdiisu aanay ka warqabin waxa midigtiisu bixiso bidixdiisu aanay ka warqabin haddaba inagu xadiidkan hal qodob baa cinwaanka inoogu jira shaabun nasha'a fii cibaadati illah dhallinyaro ku kortay ilaahay cibaadadiisa riwaayo kale oo saciid ibnu mansuur uu sunankiisa ku soo saaray alxaafid ibnu xajarna uu ku leeyahay isnaadkiisu waa xasan ayaa salmaan alfarisi wuxuu soo aroorinayaa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam warajulun afnaa shabaabahu wa nashaatahu fii cibaadati illah nin dhallinyaro ah oo ku bixiyo ku mariyey dhallinyaronimadiisii iyo firfircoonidiisii ilaahay cibaadadiisa ayuha alxibba horta dhallinyaronimadu waa nicma nimca inay tahay waxaad ku garanaysaa waxaa la yidhi ahlu jannuhu da'da loo doortay waa inay dhallinyaro noqdaan jannada marka la galo da'da jannada lagu joogaya waa da' dhallinyaronimo ina lakum an tashubbuu falaa tahramuu abada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu odhanayaa kuwaasi dhallinyara ahaanaysaana weligiin gaboobi maysaan carruurnimaduna waa ciil laga koro waayeelnimada dambena waa cajsi iyo daal iyo dhib badan tahay inta dhexe ee dhallinyaronimada lagu tilmaamo intay ku dhammaataa dhallinyaradu waa iska mas'ala khilaafiya laakiin horta waxaa la hubaa 22 ilaa 30 inuu nin dhallinyaro ah yahay da'daas oo ah da'da ahlu jannaah waa da' xoog badan waa da' marka uu fakaraya ra'yigiisa caadiga geeridu ay la fogtay ninka weyne hadduu in yar yar xanuunsado wuxuu is yidhaahdaa wartalow matii ay kaaga dhammaanaysayba laakiin ninka dhallinyarada ahi wuxuu iska rumaysay inuu berri ka kacayo ninka da'dahay dhakhtarka markuu tago ballanku ma dhammaado 3 bilood dambe ilaa lama bogsadabay mar haddaad daayaha qaar gaadho soo noqodaasuma iskaga jiraysa ninka dhallinyaradii laakiin wuxuu rumaysan yahay hadduu 2 goor ku noqdo kara dhakhtarba maaha waayo wuxuu rajaynayaa markiiba inuu isagu fidh yidhaahdo oo boodo marka waa nin amalku nolosha ka qabaa dheer yahay dhallinyaradu waa nimay geeridu la durugsan tahay ninka dhallinyarada ahi waa nin muqhriyaadku waxyaabaha bini aadamka lumiya ay ku xeeran yihiin siiba casriga kan
ninka dhallinyaradii inta badan waa nin jidh ahaan caafimaad qaba nin iyo gabadhkuu doonaba ha noqdo waa qof jidh ahaan caafimaad qaba waa qof waxyaabaha keenaya lahwigu ay agtiisa ku badan yihiin ninka dhallinyarada ah ama gabadha dhallinyaradii waa qof aan tajribo lahayn qofku markuu da' gaadho experience wax badan buu kordhiyaa wax badan buu ka gaabsadaa khibradu haya daraaddeed laakiin ninka dhallinyaradii wax kasta waad ka boodi kartaa iyo waad saxi kartaa buu isleeyahay experience-kaasi ma leh uu naftiisa ama hawadiisa ku kontrooli karo haddaba maadaama uu rumaysayana wakhti badan baa hadhay kollayba xagga dambe markaad waayeelowdaabaad ka toobad keeni afkaartaasi dhallinyarada waa ku badanta haddaba ninka isagoo da'daana jooga cibaadadana laazima da'dii dhib oo dhammi dhici lahayd ninka jooga laakiin intuu nafta xakameeyo ku xakameeya ilaahay sharcigiisa gabadha nafta xakamaysa ku xakamaysa ilaahay sharcigiisa ee ka xoog bata shahawaadkiisa iyo naftu waxay doonayso ee nafta ku cidhiidhiyo ku qasba ilaahay cibaadadiisa inay ku sugnaato ninkaasi wuxuu ka mid yahay ama gabadhaasi waxay ka mid tahay dadka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maalinta la kadeedan yahay inaanay iyagu kadeedkaasi ku jirin inay iyagu carshu raxmaan harsanayaan sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo imaamu tabraani iyo axmed ba ay soo saareen sheekh alalbaanina uu leeyahay sanadkiisu waa jayid wuxuu tilmaamayaa ina rabbaka layacjabu lishaabi laa sabwata lah rabbi wuxuu la cajabaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninka dhallinyarada ah ee aan weecadka lahayn ninka dhallinyarada ee quman sabwa waa ismu mara mayaynu idhahnaa ama ficlu mara min mayl ila alhawa sabwad weeyaan haddana wahiya almara minhu ninka aan marnaba weecan rabbi waa la cajabaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacni ilaahay agtiisa waa qof qiimo ku leh ilaahay agtii marka la joogo ninka dhallinyarada aan weecweecadka aqoon qofkaa dhallinyarada ee sugnaaday ilaahay agtiisa waa qof qiimo iyo miisaan gaara ku leh ayuha alaxiba sidaa ogeed baa axaadiis badan aa maqlayseen in badan oo lagaga warramayo aakhiro su'aalaha gaarkee la isweydiinayo waxaa ka mid ah dhallinyaranimadii waxaad ku bixisay wa can shabaabihi fiima afnaah iyadoo cimrigoo dhan lagu weydiiyey ayaa si gaara lagu weydiinaya dhallinyaranimo ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa dad uu ammaanayo ayaa la yidhi waa dad dhallinyaro ah ammaan daraaddeed oo waa kuwee waa dhallintii qusuurta kuhuufta ka dooratay guryaha boqortooyada ayay ka baxeenoo waxay doortaan inay god ku noolaadaan liajli inay ilaahaytiisa ilaaliyaan inay cibaadadoodu saxnaato waa suuradda aynu maalin kasta oo jimco akhrino waxaa la rabaa in layna xasuusiyo dadka kan iyo ficladoodii walidaalika baa layna yidhi jimco kasta waxaa sunno ah inaad akhrido suuratu lkahf suuratu lkahf 4 qiso cajiiba bay ka warramaysaa afartuba ay u baahan yihiin xusuus joogta ah afarta qiso ay markaa ka warramayso waxaa ka mid ah qiso fitnatu dunya oo dhallinyaro ay dhan iska dhigtay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda baa ilaahay yidhi waa dhallin rabbigood rumeeyey annanaanu hanuun u kordhinnay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku boorinayaa dhallinyaronimadu fursad laga haniimaysta inay tahay furso u baahan haniima laakiin maca alasaf dhallinyartu inta badan fursadaasi cayaar iyo boodbood iyo daawasho iyo wax kale ku lumiyaan nebi moxamedna wuxuu leeyahy war wakhtigaasi calayhi salaatu wasalaam waa wakhti haniimaysi u baahan saa daraaddeed buu nebigu yihi 5 ka haniimayso
inta aan shani kuu iman war dhallinyaranimada ka haniimayso ka faa'iidaysa buu nebigu leeyahay inta aan gabogu kuu iman markaad weynaato caqligaagu si fiican buu u fakerayaa tajribadii iyo experience-ku wax badan bay kuu sheegayaan laakiin tamartu wax yar bay fulin karaysaa tamartu wax yar ayay fulin karaysaa waxa ballaadhan ee maskaxdu arki karayso ama ninka dhallinyarada ahi waxuu doonu fulin karaa saa daraaddeed uu nebigu leeyahy war intaad dhallinta tahay ka faa'iidee intaanad gaboobin intaad caafimaad qabto ka faa'iidee intaanad bukoonin ninka dhallinyaradii mostly uu caafimaad qabaa war wakhtiga caafimaad ka faa'iidaysa buu nebigu leeyahy intaanad xanuunsanin wakhtiga haninimada hanigu ma ahoo qura maalka dabcan maalku waa ka mid laakiin caafimaadka ka mid ah qanaacada war haninimadaada ka faa'iidaysa intaanad faqrinin wax walba waayin firaaqada ninka dhallinyarada ah xidhiidhkiisu wuu yaryahay marka aad weynaataba xidhiidhka bini aadamkaa kugu sii badanaya mas-uuliyaadkaa kugu sii badanaya aabbaad noqon awowbaad noqon adeeraad noqon reerbaad uba weynaan tolbaad yeelan doontaa adiga kugu soo hirta noloshaba waa lagula yeelanaya markaad subaxii soo toosto intaad gurigaaga ka kicin 10 problem oo aan ahayn kuwii adigu aad xalay qorshaysatay inaad qabato ayaa albaabka kuu taagan laakiin ninka dhallinyarada ahi wakhtigiisa isagaa iska leh cid lama laha waa siduu isagu u blaangaraysto no one bother garaynaya cid kale oo kaa soo dhex galaysaa ma jirto sidaa ogeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war firaaqadaada ka faa'iidayso intaanad mashquulin nolosha ka faa'iidaysa buu nebigu yidhi intaanad geeriyoonin xadiidka imaam alxaakim baa warinaya iyo bayhaqi sheekh ilalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya haddaan dhallinyaranimada intaa ka tilmaamay waxa aan tilmaamaynaa haddaba qaybta aynuu soconno ah shaabun nasha'a fii cibaadat illah nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray amase ku koray amase ku kacaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa cibaadadaynu ka rabnaa dhallinyaradu waa maxay ma masaajidka fadhfadhiyaba ma waxaynu rabnaa dhallinyaradu intay masaajidda gasho inaanay ka soo bixin maya qofka soomaaliga inta badan culture-ku wuxuu ina baray mafaahiimta cibaadada aynu haysanaa inay inta badan ku eg tahay salaada iyo quraan akhriska iyo wardiga waa ka mid waa cibaadada kuwa waaweyn bay ku jiraan laakiin qasarn intaasaynu ku soo koobnay kamaha ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نبي محمد بقى إلهي وحكولي عليه الصلاة والسلام وحط الأهضاء أنا الصلاة ضيب وعبادة محضة نص قيب قورعة أما عبادات كورنبا نور الشيدة محيايا نور الشيدة دمانتي جيري ديدة وحنور لمن إيه وحنفطه بحين يبا دمانتو دي إلهي بأسكاله macnaheedu waa maxay qofka muslimkii noloshoo dhan cibaado ka dhigi karaa hadduu xagga alle ula qastiyo hadduu wixii inxiraafa wixii qallooc iyo dembiya ka ilaaliyo inta kalena uu niyasan kula yimaado waa cibaada noloshaydiiyo wuxuu dhan cidna laa shariika lahu wabidalika umirtu waana min almuslimiin waana awalu lmuslimiin عدنا إله لو وداجن مايو معنى هذا محوي أن حديثك كلا روايات كلا قد يسمى صار ورقار صحيحين كويالين بل رواية مسلمة مثل مامنا أبي ذر وحيري نبي عليه الصلاة والسلام صحابة استقار كم يداويني ولي بوحلا إلى هذا كويان وحبه يسمى هاي دبتنا وحي هذين ذهب أهل الدثور بالوجور إلهي الرسول كيسيو أتشركيبه وحالتغي كوي حوله لها وسيولتغي ويشيكتنا وحي هذين
way tukadaan sidaan u tukanno way soomaan sidaan u soonno dee lacagna way haystaan oo wixii khayr iyo sadaqo oo dhan bay ku bixinayaan lacagtooda dheeraadka anana agtayda lacagtii ma taalo marka waxay leeyihiin nimankana ajarkii iyagaa badsaday xal ha la keeno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi oo idinku waxaa sadaqadaysataan miyadan haysanin wuxuu barayaa nebigu sadaqadu inaanay maal qura ahayn saa daraaddeed wuxuu yidhi idinku waxaa sadaqadaysataan miyadan haysanin wuxuu nabigu ku yidhi war hadda subxaanallah kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo allahu akbar kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo alxamdulilah kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo kuwaasi waa dhan oo ninka xoolaha le intuu xoolaha ka shaqaynaya xisaabinaya mashquulsan yahay adigu iska wardiyi kartaa ma intaad meel fadhiisata abad wardiyaysa maya adoo shaqadaada haysta adoo beertaada qodayaad subxaanallah iyo alxamdulilah adaba wadaysa adoo gaadhigaaga wataad subxaanallah iyo alxamdulilah ada odhanaysaa laakiin inagaa mafhuumka inugu soo koobmay baa wuxuu yihi subxaanallah iyo waxaa la xasuustaa marka la tukado dadkoo dhami subxaanallah 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 wada odhan waqtigaasaynu xasuusanaa subxaanallahda waxaynu xasuusanaa markaad tidhaahdo wardi war bal tusbixii mee laakiin waxay ahayd qofka muslimka ahi noloshiisa war carabkaagu ilaahay dikrigiisa yuu ka engegin buu nebigu yidhi carabkaagu ilaahay xuskiisa yuu ka engegin haddaad gaadhi waddo haddaad shaqaynayso haddaad ordayso haddaad lugaynayso waad iska wardiyi kartaa wardigaasi wayse uma baahna oo waqti uma baahna oo tahaaro gaara uma baahna oo waxba kaagama baahna waa cibaada uu qofku mar kasta samayn karo isagoo shaqadiisa wata haddana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkoo aa wanaagga u sheegtaana waa sadaqo qofka dadka tala fiican u sheegaya cilmi u sheegaya ra'yi lagu guulaysta u sheegaya meel wanaagsan u hagaya macruufku lama soo koobin macruuf waa wax allaaliya wixii samaca wixii adduuniya aakhira miduu wax ka tara qofka intaa dadka u sheega hadday tala tahay hadday cilmi tahay mid adduuniya mid aakhiro kuu doonayaba ha noqdo haddaad dadka u sheegto waa sadaqaa la yidhi waxaa la mid a haddaad dadka xumaha uga digto mid aakhiriya mid adduunyaba wixii dadka mahlaka iyo dhib ku haya haddaad uga digto nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo waday ayuu wuxuu soo gaadhsiiyey war hadda haweentaada haddaad u galmootana waa sadaqa buu nebigu yidhi bal u fiirso yani nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha bini aadamku uu privateka u haystay uu isleeyay malaa dee cid kale kugulama lahaa xataa taasi inay cibaado noqon karta wiilka iyo gabadha isqaba ama labada qof ee xalaasha isu ahay sariirtay wada tagaan sadaqay noqonaysaa haddii niyada san iyo sharcigu wuxuu jideeyay ay tahay waa cibaada saxaabadii foqorada ahayd ee dee awal lacagta ka ashtakoonaysay way yaabeenoo waxay idhaahdeen ooma nin baa intuu reerkiisa u tago haddana ajar loogu darayaa bay idhaahdeen yani intuu shahwadiisa iska guto ayuu haddana ajar helayaa wuxuu nebigu ku yidhi oo hadduu xaaraan sameeyo muxuu heli lahaa miyaanu dembi heleen yacni wax kastoo aad dembi ku heli lahayd cagsigeedoo khayra haddaad la timaado ajar baad ku helaysaa weeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan uu nebigu inoo tilmaamaya marka la leeyahay shaabun nasha'a fii cibaadati illaah macnaheedu waxa weeyaan waa qof dhallinyaro ah oo inxiraafaadka iska ilaaliya waxa kale wanaaga uu samaynayana ilaahay ula qastiyey xogsigaad arsaaq xalaala xoogsanaysaa ajar baad ku heli kartaa haddaad niyasan la timaado xadiis kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam imaamu tabraaniya uu soo saaray iyo kayrkiiba sheekh alalbaanina uu saxiix ku tilmaamayo saxiix ligayri kacb ibnu cujra saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin soo maray markaasay saxaabadii arkeen min jaladihi wa nashaatihi bay ka yaabeen nin muruqya goostay oo xooggan oo caafimaad qaba nin digdigtu ay ka muuqataa meesha soo maray dabeetana waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi low kaana hada fii sabiili illah ilaahay rasuulkiisiiyow waxaasoo xoog iyo raganimo ahi
fiicnaan lahayd hadday ilaahay jidkiisa ku bixiyo. saxaabadani waxay ka fikrayaan ninkani wuxuu xoog iyo murqiya haysto hadduu ku jihaatami lahaa nin raga inuu noqon lahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu u saxay fii sabiilillaahi wuxuu yihi ma goob dagaal in la tagaaba fii sabiilillaahi ah. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in kaana kharaja yascaa calaa waladihi sigaaran fahuwa fii sabiilillah. hadduu u soo baxay buu nebigu yidhi carruur yaryaroo uu dhalay inuu dee arsaaqdoodii raadceeyo hadduu u soo baxay ilaahay jidkiisii buu ku jiraa buu nebigu yidhi. u fiirsa hadda carruurtuu dhalay hadduu u soo xoogsi tegay buu nebigu leeya xoogsi xaraana uu rabo kuwa inuu cifadooda iyo wanaaggooda ka shaqeeyo fahuwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi. wain kaana kharaja yascaa calaa abawayni shaykhayni kabiirayni fahuwa fii sabiili illah. hadduu u soo xoogsi tegay buu nebigu leeyahy laba waalid oo gebgaboobay inuu dar yeelana ilaahay jidkiisii buu ku sugan yahay. wain kaana kharaj yascaa calaa nafsihi yacifuhaa fahuwa fii sabiili illah. war hadduu soo baxay buu nebigu yidhi cidna korin maayo tiisuu korinayaa naftiisa inuu ka ilaaliyo xumaha oo uu khayrka ku sugo oo cibaadaysto oo uu taa xoogsigeeda uu u soo kacay fahuwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi ilaahay jidkiisuu ku sugan yahay. wain kaana kharaja yascaa riyaa'an wa mufaakharatan fahuwa fii sabiili shaytaan. hadduu u soo baxay dhoolatus buu nebigu leeyahy iyo faanfaan. dhallinyaradu marmarba intay garan yaroo gacmo gaaban markuu jidhka dhisto cabbaar garan yaroo gacmo gaaban xidha iyo surwaal yaroo ku dheggan ayuu meelaha marmaraa isagoo muujinaya sida uu fidka u yahay ama u murqiyo goostay. nebigu markaa wuxuu yidhi hadduu wuxuu u soo baxay ay tahay faanfaan iyo ismuujin markaana sabiilu shaytaan buu ku jiraa buu nebigu yidhi jidka shaytaanku wadaa. idan meesha xadiidkani muxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa qofku wax kasta oo sharcigu baneeyey oo xalaala hadduu qabanayo niyo saalixa isagoo wata inuu ajar helayo. idan markaynu leenahay ninka dhallinyarada cibaadada ku koray ma aha macnaheedu nin dhallinyaro masaajidka fadhiyo aan ka soo bixin oo nolosha kale ka hadhay hadhowna soshiyaalka wax soo weydiista kaa kama warramayno. waxaan ka warramaynaa nin dhallinyaro ah oo xoogsada oo tukada oo waxbarta oo waalidkii u khidmeeya oo nolosha wuxuu qaban karoo dhan qabta oo dadka hanuuniya oo khayrka horseeda oo ka shaqeeya wixii wanaaga oo aan xumaha u weecanino. markaynu idhaahno fii cibaadati illaahi buu qofkani ku koray waxaan leenahay waa qof nolosha adduun effective ku ah waxqabad ku leh activity leh laakiin activitygiisiyo wuxuu qabanaya ay tahay wax sharciga waafaqsan. waa qof xumaha ka guuray oo samaha dhankiisa u guuray. haddaba ninka dhallinyarada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala acmaashaas uu ban waafajiyo ee jeclaysiiyo ee rabbi necbaysiiyo xumaha iyo faasiqnimada oo loogu gargaaro inuu waxaa wanaagsan sameeyo sababtoo ama ahaataa aabbiyo hooyadiiyo si fiican u rabeeyey ama ha noqoto saaxiibbo wanaagsanoo uu leeyahy waayo saaxiibbadu hadday wanaagsan yihiin dhanka wanaagay kuu kaxaynayaan. sabab kastaba ha noqotee oo ka dhowrsanaaday wax badan oo dhallinyarada lumiyo lahwi iyo lacib iyo boodbood iyo wakhtigoo lagu cayaaro ah ama salaadii iyo waajibaadkii oo la dayaco ah ama xaaraanta iyo maladaadka iyo shahwaatu nafsigoo la gala ah. qof kasta oo waxaa ka dhowrsanaaday wuxuu ku jiraya fahuwa fii sabiili illah. waa kuwa ilaahay qur-aanka ku ammaanee leeyahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa. waa dhallin rabbigood rumeeyey annana hanuun aanuu kordhinay baa ilaahay leeyahay. dhallintani wuxuunbay go'aansadeen inxiraafka iyo gaalnimada inay ka tagaan dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala
ayaa wihiiliyey. haddaba markaynu dhahno qofka fii sabiili ilaahiga ninka dhallinyarada ee ku jira, ninka dhallinyarada ee muslimka ee askariga ee dalka iyo dadka iyo ummadda difaacaya ee ilaahay dartii u difaacaya, fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee taajirka ee baac mushtarka ee xalaal xoogsanaya xaaraan ka durkaya, fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee beeralayda ee beertiisa qodanaya ee xalaal risqa raadinaya, fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee dhakhtare ummadda daweynaya waxtaraya ee ilaahay dartii u samaynaya, fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee muhandiska ee camaa'irta dadku uu ku noolaanaya iyo nolosha wixii fududaydin lahaa dhisaya dhisma ka shaqaynaya, fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee dadku wixii ay u baahnaayeen masaanic iyo factoriska warshada uga shaqaynaya, fahuwa fii sabiili illah. waxaan leenahay qof kasta oo xooggiisa iyo carabkiisa iyo qalbigiisa khayr ku wada, waayo acmaasha aynu qabanaa waa intaa mid uun. imaa inay tahay camal qalbiya, waxa la rumaynayo, cidda la tala saaranayo, acmaasha qulubta inaad wanaag noqoto, inta xumaan aad ka boodo. acmaasha qulubba acmaalba qalbiga degta xuma ah, isla weyni, kibir, dadkoo la yaso, waxaasoo dhammi waa acmaal qalbiyeed. acmaalba qalbiga gasho ah naxariis, tawaaduc, dadkoo la cafiyo, qofkoo naxariis bata, waxaasoo dhammi waa acmaal qalbi. acmaal qalbi oo kale waxaa ilaahay oo la weyneeyo, rasuulkiisa oo la weyneeyey calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ah acmaasha lisaanka, carabka acmaasha ka soo fusha, oo ah inaad wardido, inaad qur-aan akhrido, inaad samaha sheegto, inaad cilmiga dadka bartid, mid adduunya mid aakhira kuu doona ahaado, wax dadka anfacaya inaad bartid. waa wax carabka lagaga shaqaysto. waxaa ka mid ah acmaal jidhka laga qabto, salaad la tukado, jihaad la galo, acmaasha jidhka laga sameeyo o dhan. waxaa ka mid ah acmaal maalka gasha, xoolo la sadaqeeyo, lala baxo, ilaahay dartii loola baxo. sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam si caama wuxuu u leeyahay ninkii yidhi wari waani ilaahay rasuulkiisiiyo isagoo waaninaya wuxuu ku yidhi iqtanim 5 qabla 5. 5 horteed ka faa'iidayso. waa xadiiskaynu soo sheegnay. sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya ninka dhallinyarada ee dhaqankiisu kaa noqdaa inuu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la yaabo siduu u dhowrsanaaday u wanaagsanaaday. waa dhallinyarada kuwa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq inahum fitya baa ilaahay yidhi. warkoodoo dhaban kuu sheegayaa baa ilaahay yidhi niman dhallinyaraa bay ahaayeen. maxay idhaahdeen nimankaa dhallinyarada ahi? faqaaluu rabbuna rabu samaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaaha laqad qulnaa idan shatata. ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey fa'wuu ila alkahf yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa. maxaa ka qurux badan dhallinyaranimo iyo cibaado laysla helo? maxaa ka qurux badan dhallinyaranimo iyo wanaag laysla helo? qofkoo dhallinyar ah oo qof qumman ah, qof kibray oo boodboodaya aan ahayna, qof xaqa u taagana. nebi ibraahim isagoo dhallinyaraa buu tolkii oo dhan ka hor yimi, asnaamtiiyo waxay caabudayeen. waa kuwii lahaa qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim. waxaanu maqalnay wiil dhallinyaro asnaamtan iyo waxa kan ka warramaya burburintooda, u badheedhay xataa in la gubo. ilaahayna uu leeyahy waxaanunu qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. ayuha alaxiba, xadiidka kani marka uu ka warramayay acmaasha, inta badan acmaasha kale waa la xadiday. 7 la yidhi waxay hadhsanayaan carshuraxmaanka, acmaashooda kuwa kale waa la xadiday. mid cadaalad quraa lagu xadiday, mid dhowrsanaan zina uu ka dhowrsadaa lagu xadiday,
mid mawqafa inuu ilmeeyo markuu ilaahay xusayaa lagu xadiday mid waxa lagu xadiday xoolo bixin qura lagu xadiday qaar waxa lagu xadiday jacayl baa lagu xadiday ama markii ninka dhalinyarada laga waramayay xad ba looma yeelin isaga nasha fi cibaadati illaahi baa leeyahay ay mawqif istaaga isagu wuu keensanaya meesha tan idan dadka kale oo dhan mawaaqiftoodu mawaaqif go'an inay qaataan baa la xadiday ama ninka dhalinyarada waxa la yiri عموما نشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الله وحي نقون كرتا إنه إمام عادل النقضة وحي نقون كرتا إنه كائن به سوء الميان النقضة وحي نقون كرتا كم وحصد غضيسانية النقضة وحي نقون كرا كان زينة اسكايل عليه النقضة وحي نقون كرا إن تنبا مدانا هين وعباداتك كلا سمينية استقامر كان لو ما قيدين وبدون حد مجرد إنه كتر وح عبادة أيوم بايسق الله قامي ساسو يسوي كهلا يا بالليري إنه هرصده عرش الرحمن دي دين تن إسلام كان هذا دبوا نقطان رجي حمباري إبرية قلبيت بكر ذي عيد والبكيس هرتاجي ففي الدنيا دقارسية هذا دلني رأيها أنا مسأو بدنايه النبي محمد بقى أفرتن شربا لوجو وحيود سحابة دي سنو كير يرايه أبي بكر صدح سنو كسيرا عمر دوري لما تنشربوها سعد دوري تنشربوها علي بن أبي طالب دوري تنشربوها معاذ بن جبل دوري تنشربوها زيد بن ثابت دوري تنشربوها الأرقم ابن الأرقم دوري تنشربوها هذا تري الناس صحابة أنت دلين تهايدي أنت كله وحرسلي وحبضا أنت دلين تهاي دوري طبعا دوري الله وطن بل وحيرا رجل صدق قاعدة وحيرا أبي بكر وحوجا يروكله أي صدق جرده سو قاعدة إذا دين تندتك حمباري اللي يرى هاي اللي يرى أي هاي هديتي وحي القرآن اللي يرى قرص كتابك قرآن نكي لوح الصار ده زيد بن ثابت اللي يرى بوها لحدين هجامين يا قرآن كينو قراء كتابك إلا هدان اسبدلين قرآن الكودي وكوي الله نن اللي يرابوها كوي دقال دقالي رقد اللي يرابوها هاي كوي وحك استقبني اسمع مني صحابة وحلي واحد شري نمن اللي يراه أو قراء الله يراهضه أو أنت يمادان مالنتينا مساجدك habeenkiina masaajidka jooga maalintii way baxaan biyay soo keenaan oo dadka masaajidka u soo dhigaan si loogu weysaysto way baxaan way soo xaabaystaan dabeetana way soo iibiyaan xaabada markay iibiyaan wixii ay ka helaan bay cunno soo siiyaan ahlu sufaa masaajidka u keenaan xawaalay 70 dhalinyaro kamida habeenku waa cibaadaysanayaan النبي عليه الصلاة والسلام وحبي كبرنايان ضدك مساكين أهل الصفا بيعاونيان مسلم كلام سعيد كنت كذا بأحسان وصمينيان يعني حق فرن وهذا اللي يرى محي حق فرن وهاي مواطنتي النبي عليه الصلاة والسلام ويستاجي يردمي ركي دين السعودية ده اللي يرى عباد الله ومحي هاي ابن عباس ابن عمر عبد الله بن عمر لن يروا ابن عمر وكله كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن الشباب أنا قلنا لي يرى بأنه ينقري بيننا إلى هنا مساجد كيس سيحن شرين بطلمامية ابن عمر مساجد كانوا ينقري سيحن شرين وقوى لغة المامية شباب من الأنصار تضباطنا هي والقراء اللورين شري إنه مساجد كيشوق شرين oo maalintiina ay shaqooyinka qaban jireen habeenkiina ay nimanka cibaadaysta ahaan jireen dadkana taageeray ahaayeen idan dhalinyaradu laba cilo ay leedo labadaas aan idin ka digaya ku gabagabeynaya laba cilo ayaa jira laba xanuun oo u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan u yaqaana waa suuq galka
وإنه ننكو تصيب حماها سفضت بالله بلعبها انت بدن one step ما أنت السجار كلا تشابه يا 16 مركز تسوق صفته مال الأفراد أنا سجاري يعبد نغنسا خمرة مال اللي يريد تشابه يا مال أنت فضلات أنا خمري يعبد صوب حيسا سوقها بينا مالا بلا تشابه يا برجع دم الروتين والله صفت دي حد ودد السيتاج ما نغنسا إذن كاسوا انحراف وتصيب وين الترين ككرد عضو هذا سيدا وقرد عضنا وحا أدق إنه تصور نقط بل وحلقة يبقى آخرية دون بين بعضه كا أنت بدن دكو إسكوانية بدك كلامه يسنشره دلني يردوا مركي عبادة قبصدان قومانان قبصدان وحابون يجنا إن لهجو عن لسيدين إن لهجو وعن لسيدين قارب حاجة كلو قدعة حاجة كلو قدعة ما نوجدنا نلاش ميزان كذا كلمة ده بتنوح بو تربضية ولو طاعنها النقطة ده بتنوح كلوك واحد جود بيه مثلا عبد الله بن عمرو بن عاص به وجوري سواء إن اللي يراه مركي له جوري نكنا وحنا قرآن أخرس بدن أصام بدن هبين كنا وتاجي قرآن بآخرية مالتي رسالات هبين كنا قرآن صلاة بوضع مالتي رواسومية هي إن أنت لو مهريينا كان في كذا ما طابن اللي هو إن مالنا الصومن هبين نتاجني أبي هذا صوم روح الوار بالورة ما إن أنت بيقول بالورة نعم الرجل هو رقصة في عم بيتي مسارك معناه أبى يوتل مارت وجود مرت رجنا ووفي عن يحمك وشيء ماي ونقع صومنا صلاة يهدي عبادة وتاجن خيرنا ما أقوم بالليل هاي تبتنا النبي وشان النبي عليه الصلاة والسلام وشيار على لسانة قوة صح معها قرآن كان تاتكو آخر ده هو هبين كستان كتورا بوله وردمية كده بالدي بيشي مردمي قرآن كا مركز سوري مايا وان كحوق بدني إيدا إلهي رسولك سيو حوقي عن كفايدته هذا دوريتك عشرة ببالدي ما إلهي رسولك سيو إيدا وحوق بدني عن كفايدته تضبط كي مردمي ما وحوق بدني عن كفايدته والمرصد 11 مردمي بالدي ما وان حوق ورالك على مرة في ملوكيري 11 مرة في كتشوك وحلقوا يدي ور ما نصوما وانا نفرح دنو حلوات المام الرايت ويجا يسقوا الصون هي الصلاة هي قرآن أخرس كتير وحلو شيء جيا حقوق كلاين اللونطي ما هصوني صلاتين حقوق ذا كلام لمس سلمان الفارسي أيانك إلا لو ولا لي أبو الدرداء أبو أيوب الأنصاري بس أبو الدرداء أيوة لا ساحر هبين بويمي دبتنا وحاركي حاسكي سيو مريا اسكا كوي لغو شقين جري اسكي سيدتا دي قبر لقبابا عنو اكي حاد عيبوي وهي تري والالكا الدنيا دان كماله آخركم مشغول سيئ مالك علي هبينكي والله ساحدا إن يربا مركي لا تشيفو سوبود سحابي دبتنا صلاة بسيري حلو وار ساحبو كويري صلاة لينا اسكا ساحو وكعلي أبان مركي لا تشوفو سوبود وار ساحبو كويري وساحي غور دمبه أيوة كاعمك ما لا تكاد دبتنا وكل ورد جيسو نفط دور حق بيك وقولاده إذا كم أورن هبين أورن سوتشي ده هبين كي نفط والراحة إن إلهي عابد نفط حق بيك وقولاده إلهينا حق بك وقولي فريرك أقول حق بك وقولي يموت الماء وحن وحقوق مدول بلغارها بين الجود بسو سبحي بالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام سلمان رمبو شيء يقولي سيدا وسلمان شيء صحة وحن قدر لي ضل يرد حق عبادة التمادانة تطرف كان يكون دعاء إنه إذا أنا تعليم تبغى مسكديني وحبرا مايو أمل لو حوك ستيج مايو ناقة قوم ما لها مرة ما حد قوم دبتنا سوشيال كات بريسا دبتنا مسات كات نحفر ليسا هذا ليس بدين وحصح معها
صح معها عبادة صح صلاة هذا يلاشو صونكاغا يلاشو بينها شيء فون شيء عبادة يسوء لكن الله شيء أكتفتي جدا وعبادك لك قيب قاضو والدك وصمفل مجتمعك وصمفل ضدك وحقبه إذا وحنا لنا كسو كوبيا وقتك جواز كنا بعد ما في لياهي شاب نشأ في عبادة الله با أمانا لكن لبدا تطرف من الدين تكون أمانا إن الله شردن one sided كدكتو ونرش أردنا تسقط وأركته نرش ولا ينوي اتهام ابتلاء قد ما أنت هنا تجشاب الله وتعالى قال أنا وحن كشري أون هالك كاني صح معها سأوجد وحن لنا تتك أمانا نورد اللي يرد إلهي عابده يا آخر أمان طالع عبادته ده سيدتك كلا تضبط مواقف بالله سجيه يجا موقف دار الله مسجن عبادته ده مطلق بالله waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay leeyahay inay noloshoodan Ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xun marka in tarafka cibaadada uga dhacdo tatarruf baxdid iyo in tarafka kale uga dhacdo tatarrufka waxa sababaana qofka dhalinyarada isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiin way hagi lahaayeen waxa sax ah صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.